wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal ugu maqnaa dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta waxaana uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International ee magaalada Hargeysa. Safarka wasiirka ayaa qaatay muddo 10 cisho waxaana gegida diyaaradaha kaga hortagay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, xubno ka mid ah golaha wasiirada, la taliyayaasha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka iyo gobolada bari, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo waliba isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobolada Gabiley iyo Hawd iyo shaqaale weynaha wasaaradda caafimaadka, madax dhaqameed, saraakiil ka socota hay'adaha World Vision iyo hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda caafimaadka. Fuaad Aadan Cabdi, la taliyaha madaxweynaha Somaliland ee arrimaha gobolada bariga ayaa kelmad soo dhaweynaa ka jeediyay madaarka waxaana uu sheegay soo dhaweynta wasiirka caafimaadku ay daaran tahay waxqabadka muuqda ee wasiir Xagle Toosiye uu ka qabtay caafimaadka muddadii uu xilka hayay. waxaanu ka hornimid wasiirka wasaaradda caafimaadka Xagle Toosiye raggu meesha bilaash u mari maayeen waxa nin waliba hal walba sida loo dhaqdaa baa loo maalaa waxa la gashadaa laga maalaa. Xagle Toosiye wuxuu istaahilaa inta aanu ku nimideen ka badan wuu shaqaystay caafimaadkii wuu fiday bari caafimaad buu helay bari caafimaad buu helay dalkii caafimaad buu helay waxqabadkiisaanu ku soo dhaweynay waanu ducaynaynaa ilaahay inuu ku simo intaa iyo in ka badan baan ilaahay ugu ducaynaynaa wuuna naga galabsaday intaasoo dhaminayso soo dhaweyso. caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa ka mahadnaqay sida milgaha iyo maamuus kale ee xukuumadda Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay uga qayb qaateen soo dhaweyntiisa wuxuuna sharaxay socdaallada ugu maqnaa dalalka iyo waxyaabaha Somaliland uga qabsoomay isagoo amuuraha sharaxayana waxa ka mid ah hadaladiisii. aad iyo aad baan idin salaamayaa waan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad ii soo dhaweyseen waana runtii idin badan oo gelinaysa waana sii dhiirigelinaysaa aad iyo aad u mahadsantiin. inta kadib soo socoteenba waxaan ku maqnaa safar shaqo oo qaatay muddo 10 cisho oo ku tagay wadamada Kenya iyo Dubai. safarkaygaas wuxuu la xiriiray shirar ku saabsanaa oo sidii loo dardar gelin lahaa loona sii wanaajin lahaa adeegyada caafimaad ee dadkeenu helo. Nairobi waxaan kula kulannay deeq-bixiyeyaasha iyo hay'adaha UN-ta ee aanu ka wada shaqeyno arrimaha caafimaadka. shir 6 bilood buu ahaa wax badan oo wanaagsan way ka soo baxeen. waxaan rajaynaynaa insha Allah in marka dambaysa adeegyada caafimaad bulshadeena hesho iyo xarumaha caafimaad ee bulshadeenu ay sii korodho marka dambaysa oo ay sii fito. mar labaad aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee isu dhaweyseen dalkaygii oo 10 cisho ka maqnaa una soo hiloobay aad iyo aad u mahadsantiin.